Hi, welcome to my YouTube channel. This is Lessons with Miss Fatma. Thank you so much for clicking on this video. Please don't forget to subscribe, like, share and comment down below and hit the notification bell icon. Today we're going to learn about nouns and what a noun is. A noun is a word that names something such as a person, place, thing or idea. In a sentence, nouns can play the roles of subject, direct object, indirect object, subject complement, object complement, appositive or adjective. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal. Kusoo dhawaada kanaalkayga, subscribe ha iga hilmaamina. Maanta waxaan baranaynaa ereyga la dhaho noun. Noun waa magac ama waa erey ama kelmad oo magac shay sheegayo sida qof, meel, shay ama fikrad. Jumlada markii uu ku dhex jiro magacyadu waxay ciyaari karaan doorka mawduuca, shayga tooska ah, shay aan toos ahayn, mawduuc dhammaystiran, dhammaystir shay raaligelin ama sifo. Sifada waan soo dhiganay kuna ku casharada gadaal ugu noqda. Marka casharadeen aan galno. There are common nouns and proper nouns. A common noun refers to a person, place, or a thing, but is not the actual name of a particular person, place, or thing. For example, animal, sunlight, and happiness. While a proper noun is the name of a particular person, place, or thing, it usually begins with a capital letter. For example, Fatma Osman, Kenya, and World War I are all proper nouns. Walaalayaal, waxaa jira magacyo caadi ah kuwan common nouns kala dhaho iyo magacyo habboon proper nouns. Common nounska waxaa loola jeedaa qof, meel ama shay, laakiin ma aha qof, meel ama shay gaar ah. Mithaal ahaan, xayawaan, iftiinka oo qoraxda iyo farxadda. Ka gudub, proper nounka waa magac qof gaar ah, meel ama shay. Inta badanna waxay ku bilowdaan xaraf weyn. Tusaale ahaan, magaca Fatma Osman, Kenya oo meel iyo World War I dagaalkii koowaad adduunka. Kulli waa dhammaan proper nouns. Now we will do examples of nouns in English and Somali. A thing, book. Wax, buug. A thing is wax and book is buug. A person, qof. An animal, cat. Xayawaan, bisad. A place, Kenya, meel, Kenya. Quality in Somali is tayo. Softness is jilicsan. An idea, fikrad. Justice, cadaalad. An action, faal. Singing, hees. All these are nouns. Now we are going to do nouns and read them in a sentence and translate it to Somali. Doll, bombalo. Alicia and Kathy were playing with a doll. Alicia iyo Kathy waxay ku ciyaarayeen bombalo. School, school. Sandy is joining school today. Sandy ayay maanta kusoo biiraysaa iskoolka. Hens/farm, both are nouns. Hens have laid eggs at his farm. Digaag/beerta. Digaaga ayaa ukun u dhigay beertiisa. Storybooks, buugagta sheekooyinka. I love to read storybooks. Waxaan jeclahay inaan akhriyo buugagta sheekooyinka. Marka walaalayaal, casharka meeshaasaan ku ekeenaynaa. Dadkii fahmayna comment-ka ha kusoo qoraan, waan fahanay. Dadkii fahminna su'aalihiina sidoo kale hoos kusoo qoralee. Marka isu kaaya keena sabtida dambe insha Allah. Khayr Ilaahay hana isiiyo. Dadka maalin walba fiirsado, especially Garad channel, mar walba waa kasoo jawaabtaa. Waan kaa mahadcelinayaa walaal. Marka guys, see you this Saturday inshallah.
Hopefully you understood well. If the Somali is a bit challenging, just ask me any kind of question you want concerning the lesson down on the comment section. So, goodbye.